السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركل كسود بهذا يوتيوب channel كيغا أسد دارو جلال. dadka oo dhan waxay ku dadaalayaan inay kasbadaan kalsoonida naftooda si ay ugu guuleystaan xaqiijinta himiladooda iyo riyooyinkooda. kalsoonida naftu waa aasaaska iyo bilowga wadada saxda ah. haddaba sidee ayaad ku siyaadin kartaa kalsoonida naftaada? sameyso saaxiibo wanaagsan. arrimaha ugu waaweyn ee qofka ka caawiya inuu kordhiyo kalsoonida naftiisa waxaa ka mid ah isagoo sameysta saaxiibo wanaagsan. saaxiibada wanaagsani waxay ka caawiyaan inaad ku guuleysto xaqiijinta himiladaada iyo riyooyinkaaga. waqtiga adagna way ku garab taagan yihiin. haddaba waxaa kugu waajib ah inaad ka fogaato saaxiibada xunxun. saaxiibada xunxun waa kuwa aan kaa caawin inaad howlahaaga ku guuleysto iyo riyooyinkaaga, waqtigaagana kaa khasaariya. waqti adagna aan ku garab taagnayn. markasta oo aad la saaxiibto saaxiib wanaagsan waa markasta oo aad awoodid inaad xaqiijiso himiladaada, kalsoonida naftoodana kordho. naftaada dhiirigeli. warahyada aad naftaada ku tiraahdaa waxay sameeyaan kalsoonida naftaada. tusaale ahaan, haddaad ku fashilanto inaad ku guuldaraysato howl ama aad imtixaan hooseeya ama mansab aad gaari weydo, waxaa hubaal ah inaad naftaada kula hadasho erayo niyad jab ah sida waan guul daraystay, mar dambe iskuma dayi doono, darajadaasi ma gaari karo, iyo qaar kale oo ka mid ah. hadalladani waxay saameyn toogan ku qofku iyo kartidiisa. haddaba waxaa kugu waajib ah inaad naftaada mar walba dhiirigeliso kelmado wanaagsan aad kula hadasho sida haa waan awoodaa, haa waan gaari karaa darajadaasi, haa haddaan mar guul daraysto mar dambe ma guul daraysan doono. kelmadahani waxay kordhiyaan awoodda nafsiyadeed ee kugu kaysan iyo kalsoonida naftaada. ilaali muuqaalkaaga. muuqaalkaaga wuxuu si weyn u sameeyaa kalsoonida naftaada. waxaa kula gudboon inaad mar walba ku labisato dhar xarako badan, ilaalisaana nadaafadda jirka iyo dharka. mar kasta oo aad hagaajiso muuqaalka waa mar kasta oo ay siyaado kalsoonida naftaada. dadka marka aad ku dhex jirtana waxaad dareemaysaa kalsooni, taas oo sababaysa inaad hagaajiso ficiladaada iyo hadalladaada. akhri buwaagta. haddaad jeceshahay inaad kordhiso kalsoonida naftaada, isku day inaad akhrido buwaagta badan, gaar ahaan kuwa ka sheekeeya toosnaanta qofka, wacdiga diinta iyo horumarinta qofka. akhri buwaagta. haddaad jeceshahay inaad kordhiso kalsoonida naftaada, isku day inaad akhrido buwaag badan, gaar ahaan kuwa ka sheekeeya toosnaanta qofka, wacdiga diiniga iyo horumarinta qofka. shaki kuma jiro in akhrinta buwaagta ay saameyn taban ku leedahay kalsoonida qofka. fadlan iska ilaali inaad akhrido buwaagta ay ku qoran yihiin sheekooyinka khiyaaliga ah, kuwaas oo kugu reebi kara xusuuso xunxun. qodobka ugu dambeeya, raadi isbeddel joogto ah. adduunkan ma jiro qof dhammaystiran oo aan lahayn dhaliil ama ceeb. dhammaystirku ilaahay oo keliya ayay u sugnaatay. haddii lagu dhaliilo ama lagu sheego ceeb aad leedahay, tusaale ahaan ku degdega go'aamada, haddaba waxaa waajib kugu ah inaad beddesho habdhaqanka kana takhalustid. tanna waxay ka qayb qaadataa horumarka qofka. mar kasta oo aad isku aragto dhaliil ama cayb, isku day inaad si dhaqso leh u baabi'isid ceebtaas ama dhaliishaas.